nin reer Madiino ansaariya janaazadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyay iilka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya hadda su'aashii qabriga la weydiinaya bu nabigu calayhi salaatu wasalaam aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahanahay hadaad badin lahaydeen buu nabigu macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkayo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waagii bariye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhawaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii kaliga ayaanahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baanahay anu gurigii madoobaa baanahay waxaad iga shaqaysato baad isoo dhiganayso iga heli doontaa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kullu nafsin dhaa'iqatul maut wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al jannata faqad faaz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمدا لله إلهي بانكم هذنا إلى مساجد كجامعة إن قصوا كل ميي والله كل جان وحن دوننا ما ركتنا إلهي ندوان أئمتنا يا علماءنا أخيارتا khayrka badan leh masaajidka inagu soo dhaweysay iyo majmaceena barakaysan keena hadlaaya iyo keena lala hadlaaya inteenuba waxaan u baahanahay ilaahayna u dhawaano inaan ilaahay u dhawaano oo aakhiradeena u diyaar garowno oo adduunyadan aan ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhamaataa ilma dhashay hadaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel u dhintay hadaad maqasho noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhamaad ma leh hadaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay aakhiradii weynka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go'aynaku markaan maqalo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunyo muxuu ka tegay caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horeeyay inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tegay laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horeeyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nabigu yiri degta la saarto ee nacashka la saaro nafta la sii wada haday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay haday ahaydna waxay leedahay anu wan liibaanay horay ii geeyay bay leedahay qabrigeyga horay ii dhiga hadii nafta la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dambi badan oo shar badan haday ahaydna waxay leedahay tan way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yiri ilaa jinkiga insaga baanan maqlayn haday labada la maqashin lahaana dadku ismay aasayna way argagix lahaayeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya bari waa aakhiro weeyaan maalin buu nabigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiyo oo sheekaysanaya laana saxaabadu bashar bay haayeen Abdullah ibn Umar ibn Khattab baa lagu yiri asxaabta nabi Maxamed may qosli jireen way qosli jireen buu yiri laakiin iimaanka qalbigooda ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yiri malaa'ig ma yahayna bashar bay haayeen sida inaku aanu shaqaysanayeen sida inaku reeray u badan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxa ku weyneed ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weyneed aakhirada ayaa ku weyneed maalin maalmaha kamid nabigu arkay jamac asxaabtii kamid oo meel iyagoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan
ويدول عدين يعني قصقص ليان مركب النبي كوير لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أراكم عنه يعني الموت هذا مع دميها حصوصتي شيكدي سعد بدسن لهيدين بو نبي غوري وصلك ان نغو اركايا واد كمشغول لهيدين بو نبي غوري عليه الصلاه والسلام دي اصحابتي النبي محمد اي وباخدين مر walba inuu nabigu dul joogo oo ilaahay xasuusiyo oo dhimashada xasuusiyo oo aakhirada xasuusiyo inako maanta zaman kan joogna zaman alfitan zaman fitanti iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaalana inteen uga baahi badanahay asxaabti nabi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin laga maarmaan oo kulligan aanu wada baahanahay hadaad badin lahaydeen buu nabigu macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka anigu arkayo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquul lahaydeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waagi bariye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadanku u sii dhawaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlaya wuxuu leeyahay anu gurigii kaliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madooba baan ahay waxaad iga shaqaysato baad soo dhiganayso iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya janaazadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam marka qabrigii la geliyay ilka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya hadda su'aashii qabriga la weydiinaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka ma diinuka marali marka qofkeenaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfatanaan dadna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyada adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayay ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nabiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladhina aamanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna hay nagu sugo allah hay nagu sugo allahna inoo dhibireeyo saddexdaas su'aalood baa qof kasta la weydiin doona marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jirkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyada aad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagta aad arkaysaa laakiin manfaacada salaada iyo manfaacada thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagu tusin doona shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayyabaat wax ka qarsoomay buu noqon doona shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doona wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doona maanta adduunyada inoo muuqata aakhira inoo ma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghida'aka fabasaruka al-yawma hadid waxa la oran doona daahi xijaab ayaa ka saarna noloshan laakiin maanta daahi xijaabkii ka saarna waan ka qaadnay aragaaguba waa hadid ba qofka la oran doona oo adduunyadii baa noqon doonta qayb bay noqoni doonta ciyaalkiisii dumarkiisii daarigiisii adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doona waxa marka uu arki doona amalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas
marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkaya wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamad jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamad ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayb oo la inaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysaa dhegta maqalkeega arkaysaa lugta socodkeega arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay waa u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama goyn lugna kama goyn dheg lagama goosan oo dhan yahay jirkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kal jasad weeyaan nidaamkan caalamkoo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamul qayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan leetareedkii baan ku noolay leetareedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليس شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاقية مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكائمنا يا وأين أتقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيسي وإلهي ويان كبريده متيسته waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutayste waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutayste waa ilaahay weeyaan kaligii raje kaligii ka cabso kaligii bariyo baahidada kaligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna al-islaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man ahabba lillaah wa abghada lillaah wa a'ta lillaah wa mana'a lillaah faqad istakmala al-iimaan bu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow تاريخ الصحابة كنت على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أي يري ننكي أقوي تالو إنا قال دا أيا صود أو يري هل من مبارز
أيا معركة يقول صدع علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب نكي انتو قبتيب لك دي مرقو سيفتي قاتو يرقلي مرقو السنين علي بن أبي طالب ونكا كورف ديبو قنوف وجه لك قطفي مرقاسو علي قنوف لقطفي وجه لك قطفي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو حيستا قنوف بالقطفي علي وصريا وككعي علي صحابتي وحي كوير هذا يا علي ما حد وككعي بالقويري قال لمن انك الدين ودولته قال لما يسي adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buuro naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu yiri lillahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqoto qof diiniya ودينتو أي حكمين يسو سج سؤال قبرك وكل بيراتو ترادو أنا دينتي دوا إسلام مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله هركاني قال أورندونا محادو تقاني شخصا مركز أمومي كيلي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمنكم مركو قبرك كجوابو أيا سمد الله قد واقع أورندونا أن صدق عبدي أدون كيجي رمبو شيغي أفرشوه من الجنة فراش جنة كسو قادو أقبلا والبسوه من الجنة در جنة كسو قادو أحدا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وغفر جنة هلك أحكدا وذيب الأورانيا دول كاتكو عليسي ميتك دول كاتكو أصني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كاتكو أصني ودول كدحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق 7 سماوات هل كاتكو قفكم مؤمنكو جنة سيكدا ونيا sida inagu ba aaladan yar imika aan haysanay mobilka jawaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaarada Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka uu ka arkaya jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doona iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salatu wassalam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bihiyo ahlul jannu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ما والولايان ما والبهاريان ما قبوبيان ما دمانيان ما بكونيان waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigaya marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo ma jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي والله سأرين دونا مرقى سقف المؤمن إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نقصوك عيي وان جفني وان هردني هردد محان نقصوك عيب ولا مركو أرقى خلقي وبنك قيامة سدع اسكو دحسو عدنا وحولي حي ما أنت ومالنتي النبيد أي نويا بوهين إلهي الرسول شيسنا الروم بين نوشة يكتبوا لي ما أنت ومالنتي لنويا بوهي يوم القيامة ويان مركا نولشان أدويدو ومالني يحبين نولش قبرقو وحبين نولش قيامه هنا ومالن كليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولشنا الدنيا أن كنا لهي ومالني يا هبين مالنتينا واد فوفيسا هبين كينا واد نصنيسا واد ثيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لغو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا وحا لوغا ديغيا قد النار كميدا لوغا ديغيا لأن أوهردا وتضباطا كيساني الدنيا وصود علي أيا للي هلكا هكود دالو هكود نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوغدنا وحي الدنيا بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسانيسا ووحا قبري دباتك وكالكو هايستا ورؤمها يعني وي هردان مالك قيامها صورة الله أفوفو بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدون كدو شيء لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليو بمايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب النبي يقول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي جاي واكيدا بتان كبنا إيه شكور كهاويان إيه أفعاشا وناكسني أبدون كل ما در لك كأن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة ما لنت سرجوجة ويوم قرآنك يوم بوشيك هبين مشيقين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مقليسد هبين كدودون واكاس قيامها مركو إلهي كورمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوال لجوغي توبان كنوا صنوال حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوال يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنوال حسابتا كل مان دون لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلبي بودي مرقا ابو النبي يقول صونغو سيدو كل نبت قشيبو كيري بلي شيك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دونا وسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك مدى مجرو حدو جران أبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عدو كلاف علينا يسمى جرتو لغة عربية لغة واضح الله يا حاجة ميدك تو ايجي
عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو آجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو آجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي قول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسما يستبو نبي قول قاشان كي يشاء تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي قولي ياي هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كودو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سوى حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كما موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتا الله واسدين لقود عليه ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما ليسدح سعونيا أو ليسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يبو رسولك هم بقى مجربوا لي ورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صد السنبا ليري نكاس دولك مويان عرك ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine saydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridii baa qoorta ii suran wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan wa ala siraati tariiqi wadada la marin doonana waa jidka siraad weeyaan وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود أنيكو أنت سو مرحلة نيكا أي سوق أي سو إسقوا هذا قصل حق قصل بيودي أنو تيدا كورما يا بودي أنت نولا هاي وهم بنولش هذا كله ما يسمى بيودي ما أنت وأدويو بريت ولا وآخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محال وضاتا محاوتا أنيقو مانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدد قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أيتر يا رسول الله مالك سرجوغا أيوات كي سنكر يبي كتري من يقوى أيا كر يبي كتري كنت كنو صندو مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشيد إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة فرضك انت تكتان لك بابنك قيام الله قد يقول